دوق رصاص أدمغ لسان حليان وحي كسعة مقالة دهر قبل كسناك وحان أودح عيدن كمامل كبونتلان يولبا عيدمو مليشيات لما قعبهم ماخر wararka ka imaanaya magaalada dhahar ee gobolka Sanaag iyo wixii sheegay in dagaal culus saaka ilaa iyo hadda uu ka qarxay gudaha magaaladaasi waxaana dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamo ka marqaata madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo waliba ciidamo kale oo deegaanka ah kuwaasoo taageersan dhismaha maamulka Maaqar oo xiriir la leh maamulka SOC Qaatama goob joogaal ku sugan dhahar in rasaasta culus ay bilaabatay waa bariga hore saakay iyadoo ciidanka deegaanka ee beesha Maaqar fariisan ay ku leeyihiin xaafadda sare oo ah meel istiraatiiji ah oo lagu soo galo degmada dagaalkan ayaa muuqata mid ka dhashay khilaaf xoogan oo siyaasadeed iyo waliba mid maamul iyadoo dadka deegaanka qaarkood muddooyinkii dambe ay ku dhawaaqeen taageerada ku aadan dhismaha maamulka Maaqar kaasoo ay doonayaan inay ka madax banaanaadaan maamulka Puntland isla markaana ay ku biiraan dhaqdhaqaaqa SSC Qaatamo ee ka socda gobolka Sool Sanaag iyo waliba Cayn xaaladda magaalada ayaa mid kacsan iyadoo ganacsiga la xiray dadka shacabka ahni waxay bilaabay inay ka barakacaan goobaha rasaasta ay ka socoto ma jiro wili war rasmi ah ee ka soo baxay dawladda goboleedka Puntland ama hogaamiyaha dhaqanka deegaanka balse waxa la filayaa in saacadaha soo socda maamulka Puntland ama mas'uuliyiinta beelaha taabacsan ciidankaasi ay ka soo saaraan war rasmi ah dagaalkan xiligan ka socda gudaha degmada dhahar ee gobolka Sanaag ayaa la soo warinayay inay ka dhasheen khasaare isku jira dhimasho dhaawac dadka Maaqar waxay jagboonta ay dhigteen halka laga galo degmada dhahar ciidanka maamulka Puntland iyo waliba kuwa Maaqar ayaa xilligani waxay rasaas xoogan ay ku dhaxmaraysaa duleedka degmada si dhahar ee gobolka Sanaag ilaa hadda ma jirto wax warar ka soo baxay maamulka Puntland iyo waliba maleeshiyaadkani la magac baxay Maaqar taasoo la xiriirta dagaalka xilligan ka socda degmada dhahar ee gobolka Sanaag